بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد dadkana daawanayo dhammaan hadii joogi lahaayeen dalka iyo hadii ay joogi lahaayeen dibadda waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada masaajidka mursal magaalada Baydhabo waad u jeedin walaalayaal masaajidkani waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcadiisii uu soo gaarsiiyay saddexdaas dabaq ee isdul saaran waad u jeedin daaqadihiisii iyo albaabadiisii iyo maxaan ku raada bulkeetiyiisii ma muuqda waxaad u jeedin masaajidkan inuu dhameystirmay Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcadiisii Ilaahay waa mahad iska leh waxa marka baahideeda ay jirtaa hadartaane in masaajidkii la salaaxo oo maxaan ku raada darbigiisii la qurxiyo la mariyo mutaleelkii masaajidka bilicdiisa soo saari lahaa waad u jeedin waa dabaqyo la is saaray oo bulkeeti la isku rakibay ba halkan ugu jeedin insha Allah ta'ala waxaan rabnaa kal dhow inaan bilowno mutaleelkii masaajidka la saari lahaa hadii ay noqon lahayd dhulka hadii ay noqon lahayd darbiyada oo maxaan ku raada gudaha ah internal iyo hadii ay noqon lahayd external insha Allah ta'ala qof kasta oo klibkan daawanayo waxaan ka codsanaynaa inuu barnaamijkani uu ka faa'iideysto oo masaajidkan waa guriga alle Ilaahay subhanahu wa ta'ala gurigiisa in laga faa'iideysta dhismihiisa ajir badan bay leedahay ajirkeedana waxa ugu weyn in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada guriga ugu dhisaayo masaajidkani Ilaahay gurigiisa weeyaan wa anna al-masajida lillah Ilaahay ya iskale marka waxa la doonayaa qof kasta muumina inuu ka faa'iideysto dhismahan gurigan alle inuu dhameystirkeedu ka faa'iideysto maxaan ku raadaa wax alla wixii loogu baahan yahay waxaan leenahay marka dadka na fiirsanayo oo na daawanayo muuminiinta iyo muuminaadka heerkan waxa soo gaarsiiyay qof Ilaahay tabaaraka wa ta'ala doortay qof Allah tabaaraka wa ta'ala janno inuu galiyo rabo ayaa heerkan soo gaarsiiyay walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala gurigiisa in laga qayb qaato waxa lagu helayaa janno ayaa lagu helayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala gurigiisa in wax laga dhiso waxa lagu helaa walaalayaal janno ayaa lagu helayaa nabiga ayaa inoo sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam man bana masjidan lillah ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قف الله لقفك كقيب قاتا قف الله لقفك لسا إلهي درتيس مسجد ولسا حتى نبي حوشة شول شمبر ما لا شيء وكنت هذا دجانا يسوع إن لمدا مثل وحكير عدي كقيب قادتا نبي حولي صلى الله عليه وسلم إلهي ولسا يا جنة أيو جرو ولسا يا marka qof kasta ha ka faa'iideysto in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadii guriga ugu dhiso Ilaahay waxaan weydiisanaynaa bi asmaa'il husna ku weydiisanaynaa wa sifaatil ula ku weydiisanaynaa qof Allah la qofkii ka qayb qaatay masjidkan heerkan wax nagala soo gaarsiiyay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadii guriga ugu dhiso Ilaahay subhanahu wa ta'ala cimrigiisa u barakeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabrigiisa u nuuriyo walaalayaal waxaan joognaa gabagabadii iyo gunaanadkii masjidka ayaan joognaa al-a'maalu bil khawaatiim oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam a'maasha khatinka ayaa muhiim ah mar kastaba gabagabada waxaan doonaynaa cimri tagay ceeb lagu masagootiyaa la yiri gabagabadan joognaa walaalayaal aan ka faa'iideysano aan gabagabayno masaajidka alle wuxuu u baahan yahay mutuleel ayuu u baahan yahay hadii ay noqon lahayd sagxadii dhulka hoos aheed meeshii masallihi lagu dukan lahaa oo qof kasto Ilaahay ugu dhawaan lahaa sujuudii dhigi lahaa ayaan rabnaa inaan dhulkii maxaan ku raadaa aan mutaleelkii dhigno saas oo kale darbigii gudaha internalka ahaa gudihi ahaa hadii ay noqon lahayd mixraabka hadii ay noqon lahayd darbiyadii dhammaan wuxuu u baahan yahay mutuleel saas oo kale banaankan aad u jeedid bulkeetiyada muuqda yaa la rabaa in la qariyo mutuleel lagu qariyo mutuleelka lagu qarinayo adaa gacanteeda ku jirta qofka na fiirsanayo insha Allah ta'ala waxaan leenahay
masaajidkan dhamaystirkiisi adi ayaa laga rabaa adaa laga doonayaa ilaahay dartii ugu qayb qaado insha Allah ta'ala kelmadii hore waxaad ku aragteen masaajidkii oo bilow haddana isagoo waxaad u jeediin gabagaba waxaad arki doontiin insha Allah ta'ala hadaynu noolnahay masaajidkii oo wada mutuleela marka intaan lagaaga hormarin mutuleelka ka faa'iideyso qof kasta oo soo gaara klibkan masaajidkan waa guriga alle waxa uu dhisa kaliya mu'min billahi tabaaraka wa ta'ala qof rumaysan ilaahay tabaaraka wa ta'ala kaligi rumaysan ilaahay tabaaraka wa ta'ala rumaysan inay aakhir jirta rumaysan inay janno jirtan rumaysan aakhiradaasna ilaahay uu ku abaal marinayo markuu ka faa'iideysto janno ku gelinayo waliba jannada guri ugu dhisaayo sida uu adduunku ugu dhisay gurigii ilaahay tabaaraka wa ta'ala loo nisbeeyay ilaahay gurigiisa ayaa dhistay ilaahayna waxa ballan korkii ah inuu ku dhisaayo guri jannada dhaxdeed ilaahayo waxaan ku weydiisanaynaa ilaahayowna waafaji walaalaha ka faa'iideysanayo ka faa'iideysta khatinkiya la joogaa waxaad ogaataa camalka bini'aadamka ilaahay tabaaraka wa ta'ala ugu talagalay acmaasha saalixaadka ilaahay ugu talagalay acmaashaas way go'aysaa qofka markuu dhinto laakiin waxa laga soo reebay 3 amal nabiga ayaa inoo sheegay sallallahu alayhi wa sallam saddexda amal waxa kamid ah sadaqada loo yaqaan sadaqa jaariya waa midda masaajidka alle aad ku darsatid masaajidkan hadii aad lacag ku darsatid masaajidka hadaad mutuleelka iska qayb qaadatid masaajidkan waxaad ogaanaysaa qiyaamu ku xiran yahay حد إلا قيام الساعة لقى جارايو مساجد كما بابايو إن شاء الله تعالى إلا قيام الساعة عمل وكوس عندنا marka hal laga faa'iideysto qof kasta ka faa'iideysto ka qayb qaadashada guriga Allah ka faa'iideysto si Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu barakeeyo cimrigaaga si Ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadaada uu kugu barakeeyo si Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmahaaga uu kugu barakeeyo si Ilaahay subhanahu wa ta'ala cimrigaaga cimri wanaagsan kaaga dhigo si Ilaahay subhanahu wa ta'ala khaatimadaada uu ku wanaajiyo waxaan halkaan ugu duceynaynaa qof Allah qofkii ka qayb qaatay hadii ay noqon lahayd dumarka hadii ay noqon lahayd ragga hadii ay noqon lahayd odayaasha hadii ay noqon lahayd dhalinyarada dhammaan waxaan halkaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu Ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu kabo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala cimrigooda u barakeeyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadii uu ka waraabiyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariis adduunyo uu siiyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariis aakhiro uu siiyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala muraadkooda adduunyo iyo muraadkooda aakhiro uu fududeeyo Ilaahay kurbadooda u faydo Ilaahay waan ku baryaynaa kurba fayda tahay qof Allah qofkii kurba haysa oo ka qayb qaatay masjidka Alle oo ka faa'iideystay oo haddana nidiisa ku jirto inuu ka faa'iideysto Ilaahay kurbada ka qaad Ilaahay waxaan ka baryaynaa masaajidkan nagu caawi dhismihiisa iyo gabagabadiisa Ilaahay laga faa'iideysto ka faa'iideysta dhismaha iyo gabagabaynta guriga Alle wajazaakumullahu khairan